dagaalada sokeeye oo dalka ka jira iyo dhibaatada ay ku hayaan iyo dhiigga muslimka oo daadanaya iyo sida doqonnimada ay wax u socdaan aad iyo aad aan uga xumahay waa ka tacsiyeynaa dadka dhintay dadka dhaawaca ah kuwa dhintay allaha u naxariisto kuwa dhaawacana allaha caafiyo maanta dhiig Soomaaliyeed in la daadiya maalin ay banaaneedna ma jirin maantana ma banaana birina ma banaana maalin ay fiicantaana ma jirin waana khasaaro qofka wax geystay laftigiisa oo uusan ogeyn oo uu geystay oo naftiisa u geystay maxaa yeelay adduunka aakhira waa la isweydiinaa qofku waa muslim qofkaa disho dhiiggiisa waa ku sugaa khasaaraha koobaad wuxuu soo gaarayaa qofka wax dilay marka wiilka la dilay hooyada gablamaysa aabbaha wiil waaye waxaas oo dhan xanuunkooda inaan dareennaa nagala rabaa dagaalada sokeeye dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo dadka waxgaradka arrintaas inay u istaagaan waxa ka imaana waa wada naqaanaa agoonnimo iyo dhibaata ka imaanaysa ilaahu laga fogaado meeshii dhiig muslim lagu daadiyo barakada ka tagaysa dhibaata ka imaanaysa in la joojiyaa loo baahan yahay gaar ahaan waxaan rabaa dhacdo ka dhacday shabeellada dhexe askar lagu laayay meesha inaan si gaar ah uga tacsiyeeyo aad iyo aad aan uga xunnahay wax aad iyo aad u xunay ahay waa inay meeshaas ku joogsataa waana inaysan horseedin dhiig kaloo daata oo halkaas lagu joojiya tirada ma hubo laakiin 20 goobood wax ka badan ayaa laga bilaabo Zeyla ilaa meesha ugu dambaysa dagaal ka socda dhiig ku daadana dadka Soomaaliyeed arrintaas arrin laga naxwa arrin fiican ma aha waxa la adeegsanayana toorey ma aha waran ma aha seef ma aha bistoola ma aha waa hub culus waa hub automatic marka dadkii baahnaay oo aan isbitaalka haysan oo aan waxbarashada haysan ee haddana isdilayso mushkilad ma waxaasoo dhan waxay ka imaanayaan oo mas'uul ka ah fashilka siyaasadda hadday dadka rajo la'aan ku dhacdo oo hortooda mugdi noqoto inay isdilaan ay imaanayso marka dagaalada sokeeye in la joojiyo dalkaana loo turo dadkuna isu turaan ciddii madaxana ay u turto u naxdo u naxariisato ayaa loo baahan yahay amaano waaye mas'uuliyadda maanta la isweydiina beriyaa la isweydiinaa amaama allahi subxaanahu watacaala la isweydiina qofkii dhinta qofkii dhaawacma qofkii dayacma qofkii dhibaato ku dhacdo kulli mas'uuliyad waa marka waxaan rabnaa dhammaanteen mas'uuliyaddaas inaan u diyaar garowno ku fikirno xalkeeda ka fikirno dadka Soomaaliyeed ee maanta kala irdhoobay ee qof la arkaba meel madaxa hoos u jeedinayo midnimadooda in laga shaqeeyo loo baahan yahay midnimo la'aan wax la gaari karaa ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay qur'aanka noo sheegay waa aragnay wa'tasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafarraquu qur'aanka kulligiisu waa mucjizo laakiin aayaddaana waxay ka mid tahay mucjizaadka waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta u soo dejiyey ilaahay xarigiisa dhammaantiin qabsada walaa tafarraquu culummadu waxay dhahaan xarigga ilaahay dhammaantiin qabsada waa ku filantaa macnaha laakiin muhiimadda ay leedahay darteeda al-i'tisaam bixabli illaahi jamiican ou leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka tabakeenay walaa tafarraquu haddii xarigga ilaahay dhammaanteen aan qabsanno kalama tegayno soo ma kalama tegayno haddii xarigga ilaahay dhammaanteen aan qabsanno amarka ilaahay aan fulino kalama tegayno haddana maxaana la yidhi walaa tafarraquu intaas loogama harin واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا حسوستا مركز علك هذا وإلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا صدمي فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة إلهي الدرت هذا ولا لا إذن كدقي أياد ولا لا نغطين موباهنا مثلا موباهني halkaas aayad inta hadda aan ka sheegay
aan ugu filan oo naga badan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وحبضوا من بهند انت سأوبا انت اسم السميكرنا سومالية انت اسم السميكرنا قرآنك وحواي إنا قيبنا كقاضم قيبنا اسكرافنا ما في يعني هذا تن وحكو جرتا نولشينا واسدلينا صوما وحان نقرني عل صوما وحان كسي سعنا هلاك صوما تنان كو بدبادينا اون راعنا marka runtii ummadda Soomaaliyeed mar walba oo ay cabsato fadliga Ilaahay lutfigiisa naxariistiisa ku badbaadi jirtay dadaalka dadka Soomaalida waa iska kooban yahay culayska ka dhex jira waa badan yahay culayska banaanka ka haysta waa badan yahay diyaarna looma aha waa muuqata marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa ummadan lutfigiisa iyo naxariistiisa aan ka banarnay inuu u keeno ku soo dejiyo ku badbaadiyo ku mideeyo meesha ay joogto wanaag ugu bedelo aad iyo aad waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.